dimuqraadiga Soomaaliya ee Axmed Diyaad Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka Wajaale Samatar oo si gaar ah ula tahay ciidamada qaybo kale oo hor leh ayaa haatan soo bilowday oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah waa commandosta waa soo bajeetayaasha socod u gaar ah ayaa iyagu leeyihiin madaxduna si gaar ah ayaa ay u eegtaa soo bajeetayaasha halkan ay aragtaan ee soo maraya oo iyagu sita uniform u gaar ah oo ciidamada Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaadanaya damaashaadkan iyagoo halka cirka dadka dushooda ku sameynaya dhoolabs waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaaradahana way aragtay iyagoo laba u wada badan ka sameynaya dhoolabs ciidanka cirka Soomaaliyeed waxa uu yahay hawada labiya waa ciidamada iyaguna soo majeetayaasha oo iyagoo maraya diyaradaha soo damaashaad leh oo badan ayaa u dul maraya dadka iyagoo dadkuna si aad ah u dawnayaan ciidamada soo bajeestayaasha ah commandosta ayaa iyaguna fagaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandada isla mar ahaantaana ku saar darti lama ilaawaa cadow kasta oo soo baxaysa in uu kaaka kamid ah dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya uu ku soo xadgudo waxayna ay yihiin soo bajeestayaashan kuwa ay ku lidna waxa ay gashan yihiin tuutihii u yaqaanay ciidamada soo majeestayaasha ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed manka warka diranaha iyo kuwa wax sawiraba si aad ah ay ugu mashquulsan yihiin ciidamada waxa socdaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda soo majeestayaasha ah dadkuna shacabka ayaa ay u garaacayaan socod gaar ah ayay leeyihiin markaliya ayay isla wada helayaan taanta socodkooda iyo dawladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay argagax ku rida iyo jabhada iyo jeercadka Soomaaliyeed kaasi waxa uu yahay mid ku rida argagax iyo naxdin iyo qalbi jabbaha cadawga Soomaaliyeed hadda jeer isku dayaha in uu soo qarqaraysto ummadda Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ayaa uu la socdaa madaxweyne Axmed Suleymaan Cabdi guddiga ay halkan ay kala socdaan halka wacdaraha ay ka muuqdaan ayaa ugu riyaaqayaan taleefiya ciidamada halkan maraya waxay ku dhawaaqayaan ayay muhiimkan ayaa cad waxay ka kooban yihiin aad u fara badan kaleed waa u socdaa oo soo maraysa halkan waa horumar kala gadisan oo ka kooban qaybo fara badan oo ka tirsan yahay ciidanka soo majeestayaasha ama commandosta ee dalka Soomaaliyeed soo majeestayaasha commandosta ciidanka dalka Soomaaliyeed waxa ay kuwa waqti ku cadana baaba iyo hub ka dheera qalabkoodii dagaalku waa ciidan u dhan yahay soo majeestayaashani waxa ay naftooda ay u huraan iyo jeer daafacaada dalka hooyo waxayna ay kuwa ummadda Soomaaliyeed ay ku lido kuwa cadawga ummadda Soomaaliyeed goob kala jabkay halaaga ku badan qalabkooda dagaalkooda iyo koox banaanin taliyada wata warinka waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo din iyo qalb jab ku rida cadawga
siday jaanta isula helayaan iyo ciribtu wax la yaab leh waa ciidamo carabtan leh tababar ummadda Soomaaliyeed ay isku halayto adigu markuu arko kuwaasi oo kale waa kuwa jaanta dib ciidamada soo majirtayaasha ee naftoodurayaasha kamaal dowka ee xoogga dalka Soomaaliya kuwani iyaga isu musiiga ma ahna jaantooda iyo ayaa musiiga kuwana waxa ay qaar ka tirsan ciidamada soo bajeestayaasha oo gabdhaha rag oo kale kuma koobnaa gabdhuhuna waxa ay ka yihiin safafka hore ee dafca dalka hooyo soo bajeestayaasha ku jira ee dalkeena had ka yureeyaha cadawga doonaha in ku soo dilo waa gabdhihii Soomaaliyeed ee soo bajeestayaasha ah ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo madaxda kale ee madaxweynaha xigeenadana si weyn ayaa ay ugu riyaaqeen si weyn ayaa uu jalasiyaadii iyo madaxda xigeenada iyo madaxda kale ee guddiga siyaasadda golaha dhexe golaha ay ugu riyaaqayaan somajeestayaasha halkan hormaraya gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ka tirsan ciidamada somajeestayaasha sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jelle Maxamed Siyaad Barre iyo guddiga siyaasadda sawirkooda oo ka mid ahaa waxyaalaha runta ah ee fanaaniinta Soomaaliyeed xagga farshaxanka feerka dheer ay ku soo bandhigeen maanta 2020 Oktoobar halka kan marayay ayaa iyagu ka music bilaabay kadib markii ay dhamaadeen kooxihii somajeestayaasha naftoodurayaasha wararka fidiya gaar ahaan kuwa wax sawira si aad ah ayay ugu maqsuudsanaayeen sidii somajeestayaasha iyo xoogga marayaba ay sawir ugu qadan lahaayeen waa ay aragtaan oo iyaguna wata mootooyin